السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوان السلام يا هلا صدف هلا صدف عبد الرزاق صدف وعرب مانتينا وحير كهدلو أما طلب بحين يرسيو مدحويني مصطفى محي عمر runtii tala bixin aan siino renogbeedkana aan si khaasa ula hadlo iyo erareedka anu ma kala aqaanay nago maanan odhan wax walbaba say doonta baa noqoto mustafaan ka horeynayaa madaxweyne mustafe waxaan ahay dadka taageersan sida caadiga u taageersan baan ahay mar walbaba إذا أنا أقول لي حنكر لا يسوي سكين لي حيو مدحونا مصطفى وقف وعبرتي وانن أقوي هانو دلين يرى جيت سعود وانا أكسرنا كسر على مر والبابا تطفر بدن بحمودي يعني عن مصطفى عن نظام قلدان الدرية رنتي لكن مصطفى جراد بانو هاي رنتي جرادك الله وليه لكن أنا جرادك لا يحمدوه بان هاي مصطفى مركا وعن جعل لهاي إن له ذي مصطفى إن ندد أين هذين بان يعني وطلب بحنا يا أنكر كارك اللي ويدارين عبد محمد عمر بس عبدي إلي نمان اللي يرى أو رمرسنا بهذيو أو دبعة فرا بدن وسعب يجا wax walba oo horseeday dadkana iyagoon isagu ogeyn baa laga yaabaa inay dad fara badan wax yeelayeen ama dhibaateeyeen marka sidii yeena dhicin baan leeyahay anigu oo maartay yeena noqonin meeshan marba meel ay cidi ka cabato hamee waan ku soo celin qorrahay marka waxa weeye yeena noqonin runtii meel marba cidi ay ka cabato dadkeen waxayna u hoggaansamay aqoon ama inaan aqoonin dimuqraadiyaddu waxay tahay iyo qaabka loo hadlo waxay tahay labadaba way ku cusub tahay inaynu si xor u hadalno anagoo aan hadlaynaa ma la isticmaalo ma la isdhibaateeye dadkii aan hadli karin hadli aqoon ba ya hawlo fara badan bay gacanta la galeen waxaan marka leeyahay dhalinyarada moodaysa in Mustafa uu xaafad yahay ka daayaan waa madaxweyne ummadeed ومدحوينا قبل يا مدحوينا ديجان انتبه عبد بينو قادن إنه مدحوينا حافظ هذه هاي وحين نقر عينه ولا أوجا يدبكي نو جيستي يدبكي ما ارتكدن بيقاب كل أوسع بطبي مع حسن ربي له سلام يا ديان مركا إن مدول بقى إنه تلوي دار إنه أو إنه قرض الجح قلدنا إنه سمي إنه ولا في عيه رنتي شركة كله كسمايو كان عياي كسمايو كان عيا شركة كله مركا وهلا هاي دتك مودية إن مصطفى وياهاي لوكال إن حافظة وياهاي إنه ياهاي موديان وكذا شيء لكن أنا مدحويني وياهاي وهلا مركا هودينا لبعتنا هو هرسيدنا ويا سيارة وراء خضر يورسو جراد واسيد واد قلدنتي dhibaataha horseedina bal video-ga naqaybiya si Mustafa oo arkaaday la yiraahdo nimanka ku xeeran abdi ku xeeraa oo kale inay ku xeermaan suuragal ma yeelnayn tada kale waxaan oran lahaa bal Mustafa sawiradan qofka toos uu uga soo baxay South Africa ama toos uga baxay Nairobi ama meel hebla toos uga soo baxaan kadinka laga celinaynin xaafadaysan waliba هكذا دكتور هذا مدحوينها إنه ينام فشلن إنه إهلي هاي إنه ما أرتقي قرابية إنه مدحوينيه إنه فشلن إنه كذا بتجين سيدي عبدي إنه فشلن سيدي عبدي وفشل ما يحافظ يعني أي فشل شيء
oo meel yar tuulo yar kusoo wareegeystay markii u dambeysay laakiin meesha dhigan iyo meesha cidlada kaga wada carareen waan garan karnaa haddii marka maanta la hodo oo madaxweynihii loo qaato madaxweyne degmo yar ka soo jeeda ana waxaan odhan lahaa ka daaya mustafana arrintaa ha ka feejignaado anuu madaxweyne ii yahay anna garaadkiisii baan ahay haddii hawshana ay socoto oo la loo kaleeyo oo wiilkii xamar ka yimid uu madaxtooyada ku shaalaqeeyo uu ku shaambaleeyo ku maxayleeyo waa arrin aad adag weeyaan ma fiicna suuragal maaha wax caqliga geli karana ma aha wax caqliga geli karaa in aynu inagu in sacabatunno aynu sacabo qaldan oon jirin wuxuuna isaga xoogaal ka hayna inaynu ku eedayna maha wuxuuna xoogaal ka hayna inaan u sheegno oo war waxaasaa qaldan mustafa waxaas xoogaal waadan ka ahayn madaxtooyada dad shacabaa lagaga soo duulaa inaan nidhahno waa wax saxa weeyaan oo waxaa qofka runta u sheegno dhabtee saxda ah madaxweyne mustafa waa qof aan runtii taageero maskax cusub kusoo kordhiyey waddanka si akhlaaq leh maaragtay geed socodkiisu u wanaagsan yahay laakiin dadka hodaya dhibaatada horseeda waxba maaragtay uma hayaan runtii waxba uma hayaan waxu haya shacabka deegaankaa degan oo dhan baa waxu hayo madaxweynaha u yahay haddii ay noqoto in qofku uu xaafad inuu yahay uu soo qaado madaxweynihii deegaankee dhannaa in qaabka loogu tagay ama loogu booqanayo ay xaafad ahaan ay noqoto waa wax aada runtii loola yaabay noqonaysaa waxaan la yaabay la taliyaal badnidiisa mustafe iyo halkay kasoo kala jeedaan la taliyayaashu qof walbaan arko dhinaca amniga siyaasadda la taliyaha dhinaca amniga siyaasaddaad maqlaysa la taliyaha dhinaca hubka dhigista siyaasaddaad maqlaysaa la taliyaha maxayga saasaad maqlaysaa wax suuragala ma aha ma dad kale la waayey miyaan faxka iyo dadka qofka waalaya miyana inay dib u noqdaan mayna ahayn suuragal maaha waxa weyaan waxaa muhiim ah dadkeenu inayn isfashilin keena wanaagsan ee aan leenahay maanta mustafa qof ka wanaagsan heli mayno xaqiiqatan anu waan aaminsana inaan qof ka wanaagsan ayna helayn laakiin inaynu kuwa ugu xunxumaa u diro oy fashilayaan baa dhibinteeda la ega kuwa ugu xunxumaa inaynu u diro oy fashilaan baa dhibinteeda la ega waxaan leeyahay mustafa madaxweynaha deegaanka gacmo adag fara badan baa ku socda oo culus baa ku socda meelo badan baa lagaga dhibayaa daba badan baa ku hursan waa niga keliya oroma diiday yidhi kursigan ku doorsan mayno dhul inaan u bixino dadka soomaaliyeed aynu dhulkooda siino kursigan ku ilaashan mayno waa wax saxa waa wax xaqa weeyaan waa xaq weeyaan inuu yidhaahdo kursigan dhul inaan bixiyo ku doorsan maayo sida rag hore oo fara badan ay sameeyeen waa xaq waa waxu xaq u leeyahay waa wax aada wanaagsan mustafe waxaan leeyahay kuwa fashilayana aan la dardaarmo war nimanka fashilaya hay naga fashilna madaxweynaha wixii aad u qaban kartaa inaad ku taageeri kartaan ku taageera saxdii wanaagsan inaan mustafe anu idhaahdo hawshaas halkaas ka dhaliilan yahay inaan anu idhaahdo hawshaasi waa dhaliilanta mustafana wuu dhaliilan yahay maaha inaan isaga u duulimaaday waa inaan u nasteexeeyey weyaan waa arkaasaa kuwa aad moodo in gees ay madaxa kuleeyihin oo kusoo galaya tallaayey madaxweynihii baa la taabtay leh baad arkaysaa war madaxweynaha haddaad xaafad u qaadatay iyo degmeynu ka yimid kamuuna imanin dhammaan dhammaan marka waxaan leeyahay anugu runtii laba magaalo haddii na laga qaban lahaa dadka ka yimaadee kasoo baxa wadanka dhan uu degi lahaa laba magaalo keliya haddii magaalada qabdaharna laga qaban lahayo magaalada dhagax buur dadka dhan waa degi lahaayeen gobolka dhan uu degi lahaa barwaaqaan noo horseedi lahayd dadka kale waa dad wada dhib yar oo mixnad yar waa dad wanaagsan labadaa magaalo garan maayo waxay cunan garan maayo markan iyow waxaan leeyahay dadka hodayaasha ee dhibwadayaasha ee madaxweynaha deegaanka inay fashilaan raba war ka joogsadaan leeyahay ka joogsada ninkani nin xaafada hadduu yahayna noo sheega oo dhaha xaafadanadu madaxweynahan ka soo jeedaa oo annagaa difaacan karna isaga bal inaad difaacdaan intaad difaacdaan inta leegtahay ino eegne haddii kale
warninkaas waa madaxweyne xaqa dhammaystiran aqoon-yahana wuxuuna isagoo ogeyn baad sameynaysaa oo dhib badan oo fara badan. dhalinyaro fara badan baa yaa la xidhxidhay 2 toddobaad ee u dambeysay, shaqooyinkiina laga qaadqaado, shaqooyinka lagu dul qorqoray, dad fara badan oo kale lagu qoray. waa wax normal ah. gobolkeenu ka tirsannayo iyo dadkeena gumaystay yay tahay dabeecaddooda inay noocaas kala sameeyaan. waxaan leeyahay marka kuwa hodayaasha dhibka wada ee madaxweynaha inay hodaan oy qar uga tuuraan rabaan, mar dhow sidiina laba goola yayna ka cararin, yana meel xun oo qaldan yayna kaga cararin. waxaan leeyahay dib isugu noqda. ta kale markaan leeyahay qof waliba xaqa uu degmada uu dego xaqa uu kuleeyahay inuu helo waa muhiim. in madaxweynaha intaad awoodi karta wuxuu wanaajiyo aad ku ammaanto waa sax weeyaan. wuxuu qaldo inaad meesha ugu haboon u marisana waa sax weeyaan. ninkaas ee caaqilka ee runtii dhammayska tiran ee oromada diiday inaynu kuwa oromada raacsano midshi qabanana waa wax nasiib darra inteeda la eg. axmed shidoo ka mid yahay, xisbigan qashinkii uu ka mid yahay. waa wax inteeda le marka inagu inaynu isqabqabsano oo inu mustafa xaafadayno waxay jaanis siinaysaa ama fursad siinaysaa in kuwa aynaan inagu tahayn ama aynaan tuhmayn inay meesha ka soo baxaan oy saameyn culus ku yeeshaan. marka dadkan marka hodaya ee hodayaasha ah ee madaxweynaha fursadda ka qaadaya ha ka daayaan. mustafa waa geesi, waa ninka oramada yidhi kursi ku doorsan maayo dhul aan bixiyo. waa sax weeyaan. wax walbuu yidhi oo wanaagsan baanu qiraynaa. inta xun ee gadaal kaga liilsan ee la taliyayaasha ee liita ee wadamadan reer galbeedkii iyo South Africa iyo Kenya iyo Muqdisho ka cararay ee tagay xaafadda u haysta inay madaxtooyadu xaafadda tahay u haystana runtaan u sheegaynaa. hadduu mustafa kasoo dareerin waayo madaxtooyana way ku fashilmaya. xaqiiqatan waa saas weeyaan. arrintaas mustafa waxaan leenahay si uu madaxweyne xaqa u noqdo oo buuxiye booskiisii saxda ahaa ee madaxtinimo ha ka fejignaado ama ha ka fogaado nimankan hodayaasha ah ay usoo shaqo tagay dadka shacabka ee masaakiinta ah ee tabarta daran. okay, khadar baa wuxuu leeyahay waa libaax mustafa maanaa waa dhuruwaadhi. anugu aan soo qabtay ikaadi maanaa waa dhuruwaadhi. intaanaan soo qaban kadib ka hor waxaan sameynayaa gobolka Nogob iyo erar dadka degan. gobolka Nogob iyo erar dadka degan yaan la isugu kiin dhiibin, yaana la idinku guurin. waxa weeyaan idinka in la idinku sukiin dhiibo waa arrin aad maartay looga xumaado. waxa weeyaan gobolka Nogob guddoomiye ay leedahay. guddoomiye gobol Nogbeed baa jira. 7 degmo maamul ah. 7 degmo budgetna ma ansixin karo, qorshana ma keeni karo aan maamul ahayn. halkanna lafa badan baa ku daatay, dhiig badan baa ku aasan, waa lagu rafaadsan yahay. arrinta noocaasana dowladdii ka horreysay baa samaysay. marka in qof waliba uu guddoomiyihii gobolka Nogbeed uu fantu yidhaahdo waxbuu naga dhacay iyo degmu naga dhacay iyo gobol buu meel geeyay, isagu awoodu male. anusaan arka weeyaan gobol intuu qaato meel ma geyn karo. isagu shaqo loo diray iyo wuxuu ku daray oo wanaag hadduu qabto waa sax, laakiin la isku kiin daray idinka oo maartay waxa la idin soo dhaxmariyo arrin aad nasiib darra ah runtii. anigu intaan ka aqaano guddoomiyaha gobolka Nogbeed waa nin dhalinyaro ah oo aad u wanaagsan, aad u asturan, waddanka muddo ka maqnaa oo waxbarashada iskuulla kaga maqnaa, haddana dib ugu soo laabtay. dadkiisa inuu wax u qabto oo maartay hantiyo damcay oo maartay marka in la iska horkeeno dadka maartay la iska horkeeno hebel maxay tuula laga qaatay, tuula maxay laga dhacay, meel la dhacay. runtii anigu waxaan arkaa
maskax weli aan bislayn baanu arkaa qofka fursad baa la siiyaa waa lala shiraa waa lala kulmaa waxaanuna aaminsanahay in qof bixin kara qof bixin kara degmo inuu ahayn waan aaminsan cid walba aaminsan degmo meel bay ka timaadaa cid baa degmada soo process garaysa gobolkana cid baa soo process gareeya cidda wax tabanaysa ciddii soo process garaysa dib gobolka deegaanka u noqoto deegaanka wixii inaga jira aynu u doonan laakiin guddoomiyaheena gobolka inaynu xagaagano oo marba la yidhahdo gobol baa magaala laga soo maaragtay dhib looga wadaa iyo maxay baa looga wadaa waa wax inaga la isku keendilayay inaguna waa naqaano oo doqomaynu nahay oo dadka la isugu diritaanka badan yahay la isuguna diridda badan yahay baynu nahay ee dhoorif la-aanta ah warbal dib intaad isugu noqotaan yaa bixiya gobol yaa degmo bixiya yaa isbitaal bixiya diba la isugu noqdo cidda marka bixisa bal intaan dib isugu noqono cidday tahay inu meesha iyo meesha laynaga jira aynu aadno haddaynu dee guddoomiyaheeni gobolka u dhashay gobolka uuna maamuli kari waayo yaad u malaynaysaa inuna maamulayo haddaynu intaan ka hor nimaadno aynu dhagax ku tuuro aynu iska celino aynu tuugi una dhacay aan dhahno ka laynoo keena miyaynu joogi baad u malaynaysaa ma joogayo kaasina waa kuwiina dhacay ilan gobolka sidii unbuu maamuli sidii unbuu maamulayaa marka waxaan leeyahay dadkan maskaxda dhinac usii jihaynaya dhinac kale ha u jiheeyaan ilaahay ha ka caabsadaan runta ha isu sheegaan xaqiiqdan ha wajahaan yeena ka noqonin waxaan unu raba hadduu dhici waayo waxa ad u rabta yeeli mayna yeena ka noqonin khadar madax baan soo qabanayaa not answerin ba khadar oo lidhi intaad ka dhacdo kusoo laabo khadar kusoo no khadar maryam ruum yahay okay السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أيامنا وعيكم قوتين سألني يا مهندي. حالدا. الحمد لله حالتك غور. ما شاء الله عاد أنا جرب كذا طور مثلا. جد بجد ورا ما هينام. أتكوّ قابي هاي. يا. أتكوّ قاعد بقابي. يجد بجد هذا صوت اللي ورا ما هينام برنامج. يلا يا أوكي. الجواد ما كان عليه. أنا كان عليه. أوكي. خضر ماح وسوق بصوب كروي نود أنسرين بولا أنت تكرر على كسور الله وأنا كسور قمرية وكسور قمرية وعلى دتك رنق بيت كاي اللي يسودي بي ديا حيران اللي يهبل إسكعلي ككلا إسكعلي ورانتي إني قلبيت بدي كجرتا يا قبل كقري ديا كيني كجرتا أداد واحد كسر عشان إنسان رجل كسر عين لا أداد هشام ودرسل كلنا نسوي درا اوكي شطوب عبد الله طبعا صدق شو ذي كات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا أحمد أرد. كوزع يلا. كوزع لو مقلها ياي الورن. يو أدبان وهريبان السقوط تورا يعني كستون ده هذا كذا زون عاي. إن وحيابها إن توبين كاجا هاون واحد كيش كيس أنا أدو مغلين. إن لكن واحد نفط أوبا أنت محو توبين كوهاب اللي ما يده هذا بقى. سبيعان مركا حالتنا كل يوم اسكابا قرنayna abo iyo aad baan idin salaamaya adiga iyo meelaha aan ka dhax arkayay dhamaantoodba dadkoo dhan baan
dadkoo dhan aad baan idiin salaamahayaa war leydhkan shidbal سفيان aad baan horta idiin salaamahayaa dhammaantiin horta nimankan lagu yidhaahdo reer nogobeed iyo reer erer horta wax ka dhexeeyaa ma jira labadooduba iyaga labadooduba waa dad iska sakaraad ah wey سفيان nogobna erer waxba kama haysato ererra nogob waxba kama haysato waayo sababta waxa weeye labada meeloodba hadday nooca yihiin iyo sida yihiin waan ognahay cidda wax ka haysata ama ka haysan jirtay waa xagga kore ee adigu eega sheegaysa galbeedka سفيان markaa dadku hadalkana aad adigu leedahayna allaha ku anfaco reer nogbeedka reer erereedka waxba idinkama dhexeeyaan aniguna fariintaa kuugu sii labaynayaa labadaa wax ka dhexeeyoon walaaltinimo ahayn ma jiro oo walaaltinimo unbaa ka dhexaysa iyo ehelnimo iyo degmo wixii kore ee xaggan jira midna niyo waan leeyahay aan meelo kale shanqadheeda ka maqlayay degmooyin laga raray dadkii kale oo dad kale la keenay oon maqlayay dhegtayda kusoo dhacaysa سفيان cirka kama annaan imaninaya cirka kama annaan imanina dhulkaanu ka nimidna kaa weeye haddee madaxweynaha waxaanu leenahay arrimaha ka tanaasul baanu leenahay bal nagana qabo ninkan lagu soo diray ee dadka gobollada ka qaatay ee la sheegayo degmooyinka taasaan isagana fariintaa usii farayaa dadku dad wada dhashay oo ehelahoo wada degan oo aan kala maarmaynin weeye bal horta ninkaana hana laga qabtaan maamul kalena mustafa cagjarra waxaan leeyahay mustafa cagjar waddan dhan buu madaxweyne u yahay oo anigu aan ogaadeenayo u aqaano ama Somali state ama Somali galbeed qof waliba siduu doonayo ha ka dhigto mustafa cagjar waddankaasu madaxweyne u yahay madaxweyne aad loo tahay ummaduna ha kuu sinaataan leh سفيان iyo hadal intaasaan anu ku soo gabagabaynayaa in Axmed Aarow arrimahuna way isa saaran yihiin meel cusubon joogaba laydhkii wax naga go'aya aad baan kuu salaamaya adeero اوكي وانا سلام يا بقولك يا بقول يكاد خضرك جرس عبد الرحمن جرس له سوق وانا سفيان سوق وانا على dadka reer nogbeedka la isugu dhiibay mid walba ka kale loo waxaynayo ka tanaasulaan iyagu hay sugaadaan iyaga yihiin mursal xaaji هاي السلام عليكم. السلام ورحمة استريان ده السلام صاحب يور. عدك يا ريوا. ما هذا. سبعا. أروحكم السلام ما نحصل توبكم محاولي توبك أتكلم اللي سمعت محاولي. كي توبك ويدي ما ندي توبك أنا كان لسه ما كان لسه أسوق هذا توبك مرة هوري. خضر ما حو سواق بصوت على سواق صوتها وقعنت تدي له أنا كسينا توبك دي هذا توبك لا يزني يده هنا أي صوت حقل خضر دي قعنت صوتها خضر أنا كسوق وريه دراسة رسالة ورسالة وقعنت صوتها أنا كسوق وريه اوكي عند السؤال مرسل حاجه طابق محاوي هذا ترى وان فطور وما دوقت موقف لان انا كسو داري قف انا كسو داري انا هذا ورا جرسلي ما جرسلي كما هذا باش جرسلي او عندك تاج السلام عليكم. السلام ورحمة أيا الله السلام. أنا قاعد أبي اللي كان لندن أخذ كذا مثلا أنا. ثلاث
bayna kala gooyay cafwan warniyo aad baan kuu salaamayaa dadka meesha ku jira iyo dadka islaamka oo dhan oo wada salaamayna insha Allah tacaala waxaan leenahay ciddii aan wax iska dhigin cidina xog falmayso si fiican haddaadan adigu adoon cidna dulminin oo maaragtay dadba waxay u malaynayaan inaan Mustafa caayayno oon dad ku kacsannahay oo aanu dhibaato wadno anagu cidna kuma kacsanin Mustafa waa wiilkayagii waa madaxweynahaynagii waa maaragtay anaga cid walba ka jecel laakiin wax tabashada iyada iyo baahidanada haddaan anagu u gudbinin isagu intuu noo yimaado noo samayn maayo si fiican cabashadanada meesha ugu weynaynu shakiga ka qaadnay waxa weeyaan markii la dalacsiiyey nimankii gabdhaha naasaha ka gurayay si fiican maatida laynayay gabdhaha haddii la yidhaahdo basbaaska suu doona ku odhanaya yacni waxyaalo badan oon afka la soo mari karin baa runtii jira nimankii waxaa sameynayay markuu dalacsiiyey indhaha maaragtay full light kaan shidanay si fiican marka waxaan leenahay arrintu caadi weeyaan laakiin reer nogbeed iyo reer horta laakiin waa qalad reer nogbeed iyo reerareed baa la leeyahay reer nogbeed iyo reerareed iyo maaragtay jarareed iyo jigjiga maxay iyadana faafan horta afarta gobolba waanu degnaayo afarta gobol horta goboladooda goboladeeni actually laakiin de yani markaan hadda beesha magaceeda sheegayno afarta gobolba waanu degnaa si fiican marka waxaan leenahay dadku maaragtay hadallada ayaan la turjumin dadka walaalaha ayaan si xun wax loogu fasirin laakiin xaq anaga cid nooga xishoon mayno anagu yani runtii waxaan nahay normal walaa baad ka xishoon dee walaa waxaad markaad dad inaad kala qaado ama aad si gaar u hadasho waxaad isodhan show dee ama dad kula yaaban dadka iyo goboladii waxa waa isla wada mid laakiin waxaan aragnay wixii dani walaaba maaragtay allah yaa doono ruux waliba naftiisa la ordayo si fiican marka waxaan leenahay dadku waa wada dadkeeni goboladu waa wada goboladeen wuxuu waa isla wada midkii laakiin Mustafa waxaan ka codsanaynaa dambiilayaashii dambiga galay waa wada dambiilayaal kaayaga iyo kii kale iyo haddaan in hoos u sii galo kii qorraxii kasoo kii fiiq kasoo jeeda waa isku mid labadaba aynu maaragtay aynu sharciga geyno si fiican markaa wada shaqayso cadaaladda ina kala eexanin marka una intaasaan insha allah kusoo gabagabaynaya أيوة السلام عليكم. إيكادي والله أنا فاهم والله كذا سويت تكتيك عندي إيكادي هكذا جواب هذا مرك هكذا جواب هذا خضر ما يحو ولا والله مغلى عيان له سيف هذا خضر ما ننو بياسر هذا أبتي وانكو سلامي عادي عاد سلام الله عليك سيدي عبدين بادون ناخذ عبد اسوق اور مقعد وطو نينك سو بخي جيري واساس ويان أبتي وانكو سلامي boqolkiiba boqol maxay hayday weegan waxay dhagaygu maqlaan naga baan ugu farxad badnaa hadayba dadkaasi hadleen deegaankeena dadkii dhibaatada ugu badan ay ku dhacday buu ahaa nagob iyo erar iyo xasuuqa ugu badan haddana waxaad moodaa in indhaha laga qarsaday baad moodaa inkastoo iyagu ay dhaliisha u badan ay leeyihiin oyna hadlanin waxaa la yidhi nimaan hadlan habartiina ilowdi ma maqli jirta abti si fiican saasaa abti ku dhacday hadda daraadoon Minneapolis xaflad lagu dhigay markii wallahi aad iyo aad baan aan ugu farxay waxa weeyaan abti xaqooda hadayna dadkaas u istaagin cidna ma soo xasuusanayso si fiican meesha gobolka nagob la yiraahdo iyo erar waxa weeyaan xasuuq haday tahay waa meeshay ku dhacday ciidan haday tahay waa meesha laga soo qoro maxay hayday dhalinyaradooda la dhibaateeyo mar walba aan wiil yar oo dhalinyaro oo kacaan loo ogolayn haddana dulmi kala u si dheero wixii wax qabadkii iyo horumarkii iyo wixii oo dhan xataa ina ilaygi hadda meesha ka tagi qorraxay iyo dhagax buur iyo maxay hayday dhulka waynu ku arki jiray laakiin nagob maynaan arki jirin isagoo wax ka soo hadlaya si fiican marka abti waxaan leeyahay dadkaas xaqooda ha u istaagaan
hana u halgamaan mustafa waa wiilkeennii waana madaxweynaheennii macaaradna ninkii ku noqday reer ogaadeeniya isagaa yaqaana meeshuu tegayo mustafa ma macaaradsanin garabkiisaan taaganahay waa wiilkanagii maxay ahayday waana ku dhimanaynaa laakiin waxaan leenahay mustafow gobolada sin baan leenahay insha allah waxaan weeyaan dadka sharafta leh meeshaas dadka culimada iyo dadka cilmiga loo dhan baa ka soo baxa waa dad sharaf leh waa dad edeb leh maxay ahayday dadku xagxaganaya maaha oo xafiisyada kugu soo garaacaya xasuusaanu leenahay abdi waxaa jira dhalinyaro fara badan oo meelahan qurbaha ka yaacday oo mustafa tala weydaarinaysa oo madaxtooyada fadhida oo weliba hayb ahaan runtii u fadhida marka nimankaas cabdi bay seegtay inuu iska celiye kuwa maxaynu odhan karnaa abti waxaan dhahaynaa reer dhan oo reer tolkeena oo reer cali yuusuf la yidhaahdaa in waxaynu ku eedaynaynaa cabdi bay raaceen si fiican dhibaatadii maanta gaadhay aanu qoraxay baan abti ka soo jeedaa nagobna waan ka soo jeedaa si fiican maanta qoraxay boosaskoodii ilaahay baa igaga sarreeya waxaan ku leeyahay boosaskoodii waxaa la leeyahay ha gadanina boosaska reer cali yuusufyaan ha dhow tolo inagu qabsanina abti waana reer tolkeena waa dadkeennii aad iyo afar nin oo tuuga oo korneylaa oo dadka xasuuqay ayaana reer cali yuusuf ka matalaya reer cali yuusuf oo dhan abti madaxtooyada muuna fadhiyay aad iyo afartii bayna eedu ku raacday aad iyo waxaan leenahay dadka tolkaya ee gobolka jarar ka soo jeeda ee mustafa ka soo jeeda war hooy mustafa maxay ahayday waa nin qaran nin qoys maaha mustafa maalintii uu maxay ahayday madaxweyne noqday buu qoysnimo ka tegay reer ogaadeen iyo iska daayay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ee ogaadeen joogto dhan buu madaxweyne u yahay ku cagala ku indhala ku lugala ku caafimaad qaba ku madax maxay wasiir dadkaas oo dhan buu madax u yahay mustafa qoyska ka dhigina baan leenahay reerkan reer tolkaya reer jarar waxaan leenahay mustafa ka fuqa mustafa waa la dhaliilayaa waxbaa laga sheegayaa waa la amaanayaa wax qabadkiisa lagu amaanayaa wax qabad laantiisa lagu dhaliilayaa cabdi maxamuud cumar waad ogeyd cabdilaweynu ka dhashay haddana ummadda ugu maxay ahayday ugu neceb ee ugu dhaliisha badan ee wax ka qora ee caaya ee wax ka sheega reer cabdilay ahaayeen ilaa tudayna ma taageersan inuu jeel ku jiro waxaan leenahay ilaahu ka soo daa laakiin mali inuu ilaahay nagu soo celiyo ma rabno marka waxaan leenahay mustafa waxaan leenahay wiilashaas jarar ka soo jeeda walaalayaalow maxay ahayday ka fuqa mustafa oo dadka mustafa markay wax ka sheegayaan ama ay ka hadlayaan ha ku dhegina haddaanu adduunka wiil aan ugu jeclaayo oo loodhan jiray maxay ahayday iid cabdiwaaxid adduunka wiilkaasi waxay ahayday wiil jabhad uu ahaa wiil aan aad u jeclaay buu ahaa haddana markaan maalmahan arkay isagoo dadka yara kala falleedayo oo kala yar kala falfalleedayo wallahi aad baan uga naxaa waxaan leeyahay ruuxa ogaadeen kala saara ilaahay dhabarka iyo dhaxaa ka jabiyaan leeyahay ruux ogaadeena uga abtiriya ama uga qabyaaladeeya deegaankaas ee ogaadeen kala saara abti ilaahay indhaha ha tiraan leenahay annagu reer ogaadeen iyo dhan waa iskugu kaya mid ka goday jooga ka qalaafa jooga ka nagob jooga ka erar jooga ka qoraxay jooga ka jarar jooga ka wardheer jooga ogaadeen waa walaalo waa mid qoys walba dhibaata ku dhacday qoys walba gurigoodii baa lagu gubay kaan dad laga laynina waxaan ku leeyahay dulmi baa ku soo dhacay abti waxaan leenahay dadka kala saaraya ilaahay ha naga qabto shartooda mustafana waxaan leeyahay mustafow la taliyaha xun ceeb buu ku badaa la taliyayaal xun ha samaysanina waxaad samaysataa la taliyayaal fiican oo kuu nasteexeeya oo wixii dulmiga kaa qabto kuu sheegay inuu dulmi yahay adiguna nin aqoon-yahanaa tahay maskaxdaada kaashaan leenahay nina qabyaalada ha ugu joojinin baan leenahay dhagax buur iyo sagag ha sinaato dhagax buur iyo qabridahar ha sinaato qabridahari iyo goday ha sinaadaan wardheer iyo goday ha sinaadaan ummadda jigjigi iyo maxay ahayday dhagax buur ha sinaadaan deegaanka innaga iskale dalkuna waa dalkeennii dadkuna waa dadkeennii waxaan leeyahay dadka isku wad baan leeyahay abti aad baad u mahadsantahay boqolkiiba si fiican oo wanaagsan baad u hadashay aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baan kuu salaamayaa maxay ahayday aniga halkaa deegaanka reer abtigay dad badan baa lagaga xasuuqa abtiyaashay abtigay cabdiqaadir sheekh maxamed baa loodhan jiray oo jawxadan xubin adag buu ka ahaa maxay ahayday dadkii halkaa lagu xasuuqay bay hooyaday ay ka soo jeedaa marka waxaan leenahay boogaan nagu yaalle ha isu qabyaaladaynin qabyaalada naga daayaan leeyahay habti waana ku salaamayaa aad iyo aad baa mahadsantahay aad iyo aad boqolkiiba boqol aad iyo aad khayr allah inkastoo aad sirto magacii magac nin aad ii soo qabato cabdiiley baa saa ahaan jiro markaan live ka soo gallo magac nin isagoo wata gabdheed isagoo nina soo fadhiisan jiray moogta hadde abti wuxuu nin cabsanayo oo wuxuu iska xaaladaysanaya
بس خضر أنا خضر باي يقول خضر ماح خضر ما قبلنا وقتها خضر ما يعرفتي والله waxaan ku yiri waa si khaldan bay iga qor Facebook horaan lahaan jiray oo kiiba taleefankiiba intii iga waxaysmeen baan hadana kan iskaga soo waxaystay ساعة كفتي بعد بدل ما تصدق بقول كم بقول aad iyo aad baan ku salaamayaa ayaan loo adigana aad baad u mahadsantahay abti سلام الرجال نور رقور رحيم سيهم بينه البحثين بس قبلنا سؤال ليس ده والله والله ينقل البحثين والله والله برساق والله والله ينقل البحثين رقور رحيم عبد الرزاق بن سوق وانا حسن داير احمد عبد النور وقعنت سويتها وسام كو سوق وانا والله قعنت ركبتها حناد محمد حناد يرن محمد وان سوق وانا وقف كان كبخو إننا كان سوق وانا يا سو جيده marka inta ku soo waayo حناد يرن محمد كين بهجة حناد يرن محمد wadan soo qabtay والله أولا السلام عليكم. السلام ورحمة ما شاء الله برنامج واحد مدة أنتم مدح دي سهرة أنا دافتي بل هدي أد إير هدول مركرتو إبلا ولا لو ومدحوين مصطفى عمر خير الله سي مدحويني ugu karaamada badnaa markaan dhinaca ayaga fiiriyo laakiin ugu la taliyayaasha xumaa waan gartaa baan rabaa in haddii aad awoodo wixii advice ama aad siin lahayd maaragtay wixii waanaha ilan qofku hadduu wanaagsan yahay oo la taliyayaal xunxun ay la taliyaan khadku ka baxaya waa inta muhiimadu waa intaas okay niyahow horta maasha allah barnaamij aad u fiican aad baan usoo dhaweynayaa qaabka wanaagsan ee micnaha aad iskugu soo qabanayso madaxdan aad u tusayso wixii ay qabatay iyo micnaha wixii ka khaldanba run ahaantii aanba isagu ku horeeye qofka sidiisaba hadduu isaga wanaagsan yahay ama ma garanaysaaye uu wanaag ka soo socdo soomaalidu waxay dhahdaa saaxiibkaada wanaagsani wanaag buu kuu horseedaa saaxiibkaada xunna xumaan buu kuu horseedaa kolley haddii aad adigu saaxiib xun yeelato dee saaxiibkaada xun talo xunun buu ku siini aad iyo taladana sideedaba niyahow adigaa ku nool iyada kuguma noolo si fiican run ahaantii waxaad moodaa wax uu gobolku ka weynaaday oon iskaba ilownay oo ma garanaysaaye daniba noogu jirin baryahan dambe inay dib u bilaabatay qabiilaysi iyo qabyaalad iyo magac kala qadqaaditaan inay dib u bilaawdeen waxaana micnaha ma garanaysaa waa qaran dumis mooyeene hadda ma garanaysaa wax sharaf oo inoo keenayso malahan afarta geesood haddaad gobolka uga dhaqaaqdo waxaa lagu sheekaysanayaa ogaadeen isagaa is haysta isagaa kana shalayto waxaad moodaa magacaan ogaadeen inuu heer gaaray waxaan xasuustaa 2007kii arday baan ka ahaa jigjiga waxaan xasuustaa waqti xataa aan awoodi kari waaye inaan sheegto inaan ahay ogaadeen laygu dhihi jiray wallaahi billaahi tallaahi xabsi baan kugu hubsanayaa magaadan ogaadeen walaal topic oo soo laabo insha Allah waa dareemayna waxaas oo dhan laakiin la taliya tusaaluhu markii micnaha aad meesha u socotid sideedaba weliga allaha gar ma gashay gartu markaad gashid 1,000 xaajo oo hore u dhacday yaa lasoo faaqaya kabacdi ma micnaha garti loo imaan laakiin tangar ma sheekadu haddii meelaha aan lugaha lasoo marmarinin sheekadu haddii aan lugaha meelaha lasoo marmarinin ma soconayso soo ma ogid inta muhiimadda ee kooban baan kaga hadlaynaa haddaan dhahnana intii horey u dhacday way qarsoomeysaa marka anuu sideedaba bataatanba madaxweynahan cusubi ilaa qaadkiisa ama qaabka uu dhaqmaayo ama qababka uu micnaha u magacaabayo dadku waa qabaab aad iyo aad u khaldan la taliyaal ma ahan waa wax isaga xaggiisana kasoo fulaya qofkana sidiisaba waxaa loo baahan yahay haddii uu micnaha wax samaynayo wada joog loo wada dhan yahay in loo sameeyo micnaha meeshan waxaa ka socdaa hadda ma garanaysaa qaab qabiilaad isku dil ah qaabkaasna micnaha waa qaab aan soconaynin kolley wixii wanaaga ilaahana waafajiyay laakiin waa qaab hadda qaabka ay u socoto aad moodo in micnaha uu calankeenu hoos ugu dhici doono dad kalena ay ka faa'iideysan doonaan in micnaha ay ku bedelaataan marka mustafa haddii uu isaga isa soo sixi waayo cid saxaysa ma leh
waa nin weyn waa nin wax soo bartay waa nin isku filan maanta waa nin dowlad lasoo dhisay oo heer lasoo gaarsiiyey oo meel lagaga soo haray madaxeeda qabtay waxaa la rabaa halkeedii inuu ka wado oo ma garanaysaa meeshii ay dowladdu kusii socotay uu sii gaarsiiyo sidaas unbaa looga baahan yahay mooyaan maanta inuu dib shacabkiisii ugu soo noqdo amase loo kala magacaabo oo qabiilaad dadkii dowladda u shaqaynayay la kala magacaabo la yirahdo dowladdii hore aad u shaqaynaysa sidan baa tahay adu kan baa tahay adu kan baa tahay oo wax laga fiican yahay shakhsiga dowladdii hore u shaqaynayay hadduusan dowladdii hore u shaqaynin ilmihiisa rootiga yaa u gadi lahaa xaguu ka heli lahaa ilmihiisa rootigiisa mabacaadkay leefi lahayn ilmuhu marka haddii shaksigii dowladdii hore u shaqaynayay la xiro oo la yiraahdo shaksi hadda xabsi kasoo baxay baa shaqadii loo dhiibay waa jubjubow meeshaadii joog kubaa hadda xabsi kasoo baxay kubaa hadda xabsi lasii geynaya kuwaa bilaa shaqo ahaa kubaa shaqadii laga qaadaya marka waa halkaadii uun joog waxaa loo baahan yahay isku dhaf waxaa loo baahan yahay fikrad iyo qaab saliim oo ma garanaysaa shacabku ay ku wada faraxsan yihiin dhammaantiis beryahan dambe xataa waxaa socotay nuxnux meelaha socotay oo xataa leeyahay regoday baan waddo u fariisanaynaa iyo waxaasoo idilna micnaha waa waxay markii hore aan kuu dulmarayay ee ahaa uun ma garanaysaaye qabilaad isku dil iyo wax noocaas marka dowladda cusub aad baan usoo dhaweynaynaa annagu waxba hadda ma garanaysaaye uma wadno oo complain ah laakiin qaabka ay hadda u socoto waxa ka bedesho oo keliya halana jaan qaado shacabkeeda iyo dadkeeda dowladdii horeba usii shaqaynaya wabilaahi towfiiq anuu hadalkayga soo gabagabeynaya aad baan kuu salaamaya walaal ummadda inteeda kalena jansi bay u baahan yihiin iyagana soo qabta thank you mahadsantahay mahadsantahay aad buu mahadsan yahay saaxiibkay waxaan leeyahay madaxweyne mustafe fariinta markuu dhageysto haddii ilaa yidhaahdo waan jeclaanaya in wax ka bedelo islaam awalalo وعليكم waa السلام lagu maqlahayaa ولا لوانكم سلام معاك هلا يا صاحب aad baan kaa qaaday ya waxaad ka hadlayso maana mataqaanaa inaad ii sheegtaa saaxiibkay uu mahadsan yahay sound energy baan bixinay waxaan ka hadli karnay waan ka hadalnay waan sii dhammaynaynay aad buu mahadsan yahay ninkaa saaxiibkaya waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad madaxweyne mustafe la talintiisa jahwareerinaysa madaxweyne mustafe xaafad ma aha gobolna ma aha reerna ma ahe waa madaxweynihii ummadda soomaaliyeed ee goobtaa degan madaxweyne mustafe ha ka taxadaro la taliyayaasha qaldan ee nidaamka qaldan wata iyagu la taliyayaasha qaldan ee nidaamka qaldan wata ha ka taxadaro madaxweyne mustafe waxaan leeyahay madaxweyne waxba yaan lagu hodin jihada saxdaa u kac madaxtooyadan sida xerada geelka loo wada seexday ama loo wada fadhiyo ama laga soo wada kaco ama laga wada taliyo ha loo sinaado madaxweynihii ummaddaa tahay kuwa sidaas yeelayana waan kuleeyahay iyaga laftooda ninkan kuwii hore faraha badnaabaa eeday tala xumo iyo ku dulnoolaasho iyo halkaas inay degaana ka soo kacaan marka waxaan leeyahay fadlan talaxumada ka daaye madaxweyneha dib isugu noqday idinku waxa inaga saxan waxa inaga qaldan aynu saxanay inagu si wada jira waxaan u malayn dhowr iyo 10 la taliyay yaa la talisa oo mid walba dhinaca siyaasadda iyo dhinaca maxay hubka dhigista qaar xataa sheegteen la taliyaasha hubka dhigista xataa qaar sheegteen macnaha waxay ku tusaysaa marka weaknesska aynu inagu leenahay iyo saynu sensitive u nahay markaynu xaafad sheegno qaar baa qoraalaa soo qoray bay luun jeexayaan oo leeyihiin waa tallaayay war waxaas dadku waa ehel waa qaraabo innaga
hal xaafada ah أروح ترى أنا وأنا بعين لا ورد بوركا يرقب دارك أنا لا يقبط عليه إلهي أنا أنت اللي صوتك أنا لا يقبط بوركا يرقب دارك أنا أنا قاعد جايين هناك وين خربين وكل حاجة سنوس جايين يعني كل حاجة سنوس جايين يعني وحسب إنه قرن ميل وين سلامة يا دمانتين السلام عليكم. السلام عليكم. وقعت هذا وكل سلام. عطك ولا لا هذه هذا وكل سلام. هذا ودقي سنة marka in yaro fikradan ku darsanaya anigu qoraxay baan kasoo jeedaa marka cagjar waa madaxweyne horta dhammaan dalka Bulgaariya degan xukuma marka shakhsi uu doortay baruur raqol misaalaya marka walaalayaal waxaan ku qarsanayaa dadka xun ee la yaqaano ee caanka ah inuu ka fogaado la taliyo xun haddaad samaysato waad qaatay waxana waxaa arkaya dadka ee adigu ma arkaysid dadka waxay arkaan ayaa u fiican waxa xunna waa u xun yahay waxa fiicanna waa u fiican yahay marka waxa fiican dadka inuu weydiiyo gobolada dhib xun ku dhacay gobolada iska noolaa gobolada dadkoodii la xasuuqay gobollo waxaas lama ilaawi karo marka intii la duubana sidii hoobaantii lama liqi karo marka madaxweyne waxaan ka codsanaynaa dhammaan shacabka Ogaadeen oo dhan ka codsanayaan dadka xun ee la taliyaha ee caanka ee la yaqaan waliba la yaqaan ee la inkiri karin lagu dhaaran karo inuu ka fogaado